soo noqod wanaagsan walaalaha sharafta leh barnaamijkan Rooshaga Allah waxaan ku soo qaadanaa mowduuca halista ah ama la rabo in laga hadlo ama la rabo in la toosiyo haddii Allah wado leedmo barnaamijkeena caawa waxaan ku soo qaadan doonaa sida maalmahan aan fookaha u saareynay dhibaatooyinka ka jira banaadir banaadir dhexdooda qaasada kursigan la isku haysto waxaad u jeedaan shaashada sida kaga muuqdo walaalkeena Suldaan Cabdikariin Suldaan Khaliif Dooro oo ah Suldaan reer banaadir insha Allah ta'ala Allah xifdiyo حقيقة سلطانك وحيا ملاك كلية خفك بني آدمك ماشي كلية خفك من آدمك اللي تعبت مدح أو سريسو سلطان مدينة نادي يبديهن على سبحانه وتعالى نوح حفظيهم إن شاء الله تعالى وحن أدو وفرح سنة مركل إنه ولكن أنا جاء قلادو إنه نصف رشته ما دام حق قال وياهي إن مرلبات وبرنامج كسب سنة ولا لنا بنادرين لوجا بدرين ونلصف ونلشير جراي وحلينا مركو رئيسه ولكن جزاك الله وغير الجزاء إن برنامج كان أنت نفسي جودي قال مركو رئيسه أم كسر دبينه إن ولكن عبد الكريم خليف دورو سلطان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر بدر ميديا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه هذا ما سنتهي وأدوها إن شاء الله تفضل جزاك الله وخير سلطان هذا ما سنتهي سلطان اللي ياتهي إلها كحفظيه إن شاء الله تعالى باشا وأنا حلتوي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نكو حفظيه سلطان وحربنا نكو ديو ما دام وقتنا أدو كوبين هي سؤاله الإسلامي هي أمضى إن لو فائدة للربا وقف كلنا لو يدين كرنو أديك قف كل ويدي أمضى عن ربا إن كويديو أدوا الله ودل إدم وحسا علصنا معها إن شاء الله تعالى هذا سؤالي أسوي جودي قلب سلطان عبد الكريم وحنا صعطة أسبوع هذا السؤال في جودي الدورشين كساد قبلها بنادريجا waxay soo shaaciyeen kuraastii shantii kursi reer banaadir ay ku fariisan lahaayeen ay soo shaaciyeen kuraastaas ay soo shaaciyeen gudigaas sideed u aragtaa waqtigeed ma lagu soo beegad isleedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله آدي هاد ماركتا ومع سنتهي مرتقات كاتب مرتقات برنامج كاس سؤال شاد هدي ماركتا أن أقول قلو كلي أنا ورت مشي كريم ماركت وقت جاس إن ماركت وقت مناسبها يوم ماركتي إن أيضا مناسب بين ماركت للدك دقي إن ماركت كراستس لشاعيو واحد ماركتي أو باق أما ماركتي إذن أو أوفيشاله أو حاجة ماركت جودي دور شوين كهر فدرال أما حفيز كريز بزارها كيمد أو لو إذن أيوه ممخلين laga yaabo maaragtay inay wax hoos u jira ay tahay laakiin wararka si kale isku soo gaaraa marka hadii ay tahayna maaragtay degdeg sabab keeni karto waxa waaye kuraasta waxa ay maxaa la yiraahdaa waxay ku shaqeeyaan oo liiska lagu soo hirgeliyaa lagu soo gudbiyaa habraaca la adeegsada habraaca la tiigsada habraaca laba nooc way habraaca waxa jiro oo guud ah jiro iyo habraaca waxa jiro oo site specific ah oo u gaar ah maaragtay dadka loo qabanayo doorashooyinka marka waxyaalo waxa jira maaragtay tan oo guud u baahan maaragtay in wax dheeraada lagu daro oo yani in la kala sii cadeeyo u baahana jiro matalan waxa dhici karto meelaha qaarkiis inay jiraan beelo oo yani oo kursiga wadaago kursina hadee beelo wadaagaan ergado wuxuu noqonaa erga wadaago noqonaa marka tan guudna maaragtay maxaa la yiraahdaa ayadoo la isticmaala ayaa maaragtay kuwaasne si gaar ah maaragtay habraaca dib maaragtay loogu noqonaa marka sida ayka oo u gaarka ah ayaa maaragtay habraaca loo diyaarinaa marka banaadiriga waxa laga yaabaa waxa dhici karta in maaragtay arrin noocaas oo kale ay ka jirto habraaca maaragtay la isku dayayo in la horboodo habraaca haddii la horboodo ama maxaa keeni kara habraaca in la horboodo waxa keeni karo waxa ugu horeeyo oo maaragtay aadka muhiimku ah waxa kamid ah habraacyadu ku qoran in horta doorashada loo qabto beelaha kuraasta ku haysto oo qaybsiga beeleed 4.5 in maaragtay loo qabto doorashooyinka
haddii maaragtay maxaa la yidhahdaa taas oo la baalmaro markaas doorashadaas ma noqonayso doorasho oo valid ah ma noqonayso marka habraacyada intii maaragtay aan lasoo gudbinin oo tii khaasatan maaragtay tii gaarka ahayd aan maaragtay lasoo gudbinin haddii maaragtay doorasho la iska dedejiyo oo maaragtay doorashadaas lagu qabto hal waxay noqon kartaa waxaasoo ah in maaragtay doorashadii waa dhacday aska socota in la dhaho oo markaas saas maaragtay suuragal ku noqoto cidda rabta inay wax boobto saas inay wax ku boobto marka arrimahaas laga yaabaa inay jiraan laakiin maaragtay wax hadda official ah oo soo baxay runtii ma jirto waa maaragtay waa wax maaragtay anaga aan isleenahay waa keliya intaas aan dhiilahay amasan tahay waxaan kaloo rabaa in wax kaa weydiiyo sida waxaan la soconaa kursigan hob 266 wuxuu leeyahay musharaxiin aad u fara badan oo dhammaan dadka dhan waxay ugu soo wada dhammaan waxaad moodaa in loo soo wada hoobtay kursigaas 266 loo soo hoobtay bal kursigaasi sharaxaad yar naga sii bal maxaa dadka dhan iskugu keenayo saa la iskugu haystaa kursigaas horta kuraasta kursi kastoo maaragtay beela ku astaysan doorashadeedana maaragtay beel gaar ah loo qabanaa way jiraan kuraas maaragtay doorashada loo qabanayo dhowr oo jifo loo qabanayo hal beel maaragtay jifooyinkeeda hoos loo qabanayo ama beel maaragtay oo saasoo kale ayakana kursi uu ka dhaxeeyo oo loo samaynayo maaragtay waxaa la yidhaahdo ergi wadaag loo samaynayo way jirtaa marka laakiin shanta kursi oo banaadir haddii si guud ahaan aan u tilmaamo ma jiro hal kursi oo ka mid ah oo laba beel ama ka badan ay wadaagto ma jirto saas awgeed shantaas kursi doorashadu waxaa loo qabanaa shan beel keliya loo qabanaa shanta beelna waa shanta beel oo ku haysato kuraasta awood qaybsiga beeleed ee 4.5 ku haysto sida heshiiska maaragtay oo 4.5 ku ahay marka kursiga 266 kulle isku daysashaa jirto dad maaragtay bilaabay maaragtay keenay anaka nalka xoogay taariikhay maaragtay ka soo hadleen taariikhdii markay ka soo hadleen oo fiirinay aniga laftigeyga su'aal ay igu dhalisay sababta marka qof taariikh ka soo sheekeeyo waxa kaaga soo baxaa wax laftigeyga hore u maqlin wax laftigeyga hore aad u ogeena ka soo baxayo markii aan daba galay oo aan fiiriyey waxa ii soo baxday waxyaalaha maaragtay lagu andacoonayo kulli inay ka buuxaan waxyaalaha isburinayo marka wixii wax isburinaya haddii ay tahay markaas waxaa maaragtay waadix noqonayo iska caddaanayo in maaragtay dad ay maaragtay la fiicnaatay in banaadiriga dhexdiisa muran noocaas oo kale keenaan hadhowdina maaragtay meesha waxa ka dhalanayo colaad oo beeleeda ka dhalanayo dadaan waxaas maaragtay ka xishoonin inaan ka baqayn marka cala kulli xaal taariikh ahaan haddii aan kursigan ka hadlo oo aan dabagalo kursigan 266 hadda taariikhda waxaan ka bilaabaa meesha ay beesha qalmashuwe kursigan inay ku fariisato ay kasoo bilowday waxay kasoo bilowday kala guurkii 2012 kasoo bilowday marka kala guurkii 2012 wixii ka horeeyey kuraasta waa dhici jirtay in maaragtay ay beelo kale soo mareen maaragtay ay soo fariisteen ayna maaragtay ka haddana maaragtay nasiib u yeesheen beelo kale marka buuqa laakiin hadda jiro oo ah kursiga maxaa laga qaadanayo kursiga maxaa la yiraahdaa anaa iskale iyo waxyaalahaas markaas dan oo saas oo kale mala buuq noocaas oo kale inta ma jirin haddii maaragtay beel kursi laga qaado beel kale la siiyo waa la iska socon jiray sababta waxa waaye waxaa rajo laga qabay 4.5 kan in maaragtay 4 sano lagu soo gabagabeynayo kadib maaragtay doorashii qof iyo cod la aadayo marka 4 sano haddii maaragtay qofka uu saaxadda siyaasadda ka maqnaado 4 sano ku xigto qof iyo cod haddii la aado jaanis kaloo helaa maaragtay waa wuxuu noqonaa marka doorasho ay u furan tahay beelaha oo dhan oo qof kasta markaas xiiseynayo arrimaha siyaasadda inuu ka qayb qaadan karo
laakiin xilligii dheeraaday xilligii markuu dheeraaday oo la arkay maaragtay 4 sano haddana 4 sano lagu daray haddana 4 sano kan laga hadlooyaa marka qof kasta wuxuu yiri aniga marka inaan 4.5 kursi aan ka helaan rabaa markaasaa la aamusi waayey cid nin kasta nin isku aadiyey marka maalin hore liisaan arkayay oo sida la sheegay maaragtay guddiga ay ku tala jiraan oo haddana guddiga waxaan ka hadlooyaa siid ee banaadireen ka hadlooyaa ay ku tala jiraan haddana ulajeedada ka dambaysa ay tahay in maaragtay sida ay dadka qaarkiis ay xayeysiinayeen in maaragtay kuraastaas loo daafuri doono beelaha banaadiriga waxaa la sameeyey meela waxaa lagu aad hal kursi waxaa lagu aadiyey saddex qabiil kursi kale 3 qabiil kursi kale 2 qabiil iyo anso saasaa la isugu aadiyey qabaa'ishaas hadda maaragtay liiskooda xataa waa sheegi karaa marka dadkii maaragtay kulli yani dadkii waxaa gashay marka maadaama maaragtay xilligii dheeraaday oo 4.5 intaas kama aamusnaan karna maaragtay anakana inaan aan maaragtay helno door helno waaye kuwa ku fadhiya maaragtay aanoo banayaan laakiin heshiiska oo awood qaybsiga beeleed 4.5 haddii dib loogu raacdo haddii dib loogu laabto heshiiska wuxuu sheegayaa in kursiga ay u tartamayso inta 4.5 lagu jiro maaragtay cidda ku qoran ay u tartamayso marka taariikh ahaan laga soo bilaabo 2012 ilaa hadeer cidda ku qoran kursiga 266 waxa waaye oo ku haysato awood qaybsiga beeleed 4.5 si oo official ah si sharci ah beesha qalmasho way haddii aad aragtid maaragtay cid kale isku soo sharaxayso oo yani oo maaragtay isku soo xayeysiinayso hadda boostara la samaystay oo aragteen haddii aad aragtid macnaheed waxay ka shidaal qaadanayso isku diyaarinooyin haddii la announce gareeyo la dhaho kuraastan way daafuran tahay hordhacay sameeyeen maaragtay aniga ay kursigan isku aadiyay camal marka laakiin wax maaragtay ay ka laftigooda isku hubaanay gacanta ku haystaan ma jirto ah in maaragtay loo furi doono inay isku diiwaan geliyaan xildhibaan ahaan marka taariikhda intaas aan ka leeyahay suldaan waa maasanta sharaxaad badan ka bixisay marka hadda haddii la dhaho kuraasta hal la furo yaa faa'iido ugu jirto ma qolada hadda oo u tartamaya ma faa'iido ku qabaan mise qoladii hore faa'iido ku qabaan qoladii horena hadda waxaa ka dhawaajisay kuraastan awood qaybsiga loo qaybsaday 5 qabaa'ilo 5 ayaa loo qeybiyey taasoo kale soo cadaalad darro ma keenayso oo maxay ummadan ayagana waxay u baahan yihiin in qof kali iska haysto soo lagama fiicna taas mise qurux badneen inaan baasha la qaybsado qofba markiis loo dhiibo wallahi horta haddii heshiiska oo awood qaybsiga 4.5 uu saas tilmaamayo maaragtay cid walba lagu eedayn karo kuraasta cidda ku fadhiso laguma eedayn karo laakiin eedda waxaa iska leh maxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta oo aan rabin in 4.5 laga baxo marka dadkaas eed in farta lagu fiiqo dadkaas eed maaragtay in cadaadis la saaro culays la saaro maaragtay in ay rabin in waddanka hore u socdo haddii eedeymo noocaas oo kale ay si isdaba jooga loo sameeyo oo dadkaas culays noocaas oo kale inta la saaro shaki waxaana ku jirin maaragtay dadka oo markasta dawladdu ku cadaadinaya inaan 4.5 aan laga bixin inay hadhowda yaraan doonaan ma hadday yaraadaanna fursad waxaa soo baxayso ah in maaragtay doorasho qof iyo cod la aado markaas ayuu soo baxaa dadka aan fursadda haysanin oo najaaniska u haysanin ama waqti dheer maaragtay saxadda siyaasadda ka maqnaa in maaragtay jaanis ay helaan laakiin eedda ma saari karaan mana ku eedi karaan beelaha maxaa la yidhahdaa hadda kuraasta ku haysto awood qaybsiga beeleed 4.5 beelahaas qalad ay sameeyeen ma jirto waa mahadsantahay aad iyo aad waa wax dadka qaarkood waxaysan ogeyn ayaad maanta ifisay xaqiiqatan markii qofka la eeday xig qurux badanta waxa uu yahay in lagu eedo jazakallahu aad oo mahadsantahay suldaanka waxaan rabaa inaan kaloo ku weydiino waxaad ka dawaajisay hadaayay guddiyo ayaad sheegaysay ra'iisul wasaaraha isbuucada la soo dhaafay 2 maalin ka hor wuxuu xilka qaadis ku sameeyay guddigii khilaafaadka doorashooyinka iyo xilka qaadis ku sameeyay ma laga yaabaa guddigan hadda doorashooyinka beelaha banaadiriga iyaga naftooda in loo arko in cadaalad daro ay ku dhaqmayaan xilka laga qaado sidaad u aragtay xilka laga qaaday qoladaas ayaga naftigooda horta cadaalad daradu iska caddahay
anigana insha allah waa rajaynaa dadka maaragtay aad iyo aadka maaragtay u rajaynayo oo maaragtay oo aad iyo aad maaragtay oo ugu riyaaqsan in guddigan la kala diro ama maaragtay xataa haddii maaragtay dib looga laabanayo hoggaanka guddiga maaragtay in meesha laga saaro oo maaragtay laga casilo sababtoo ah cadaalad darada waa bannaanka la soo istaageen wax oo qarsan ma ah guddi doorasho shaqadiisa waa la yaqaana guddi doorasho guddoonka guddiga doorasho waxa waaye doorashada inuu hago waa in maaragtay habraacyada uu soo shaaciyaan waa in maaragtay uu asaga shakhsi ahaan waxaa laga rabaa hufnaana laga rabaa shakhsi ahaan waxaa laga rabaa inuu qof dhexdhexaada ahaado inuusan dhinac ahayn inuusan qof maaragtay u haynin maxaa la yidhaahdaa wuxuuna ku shaqaynaa habraacyadii loo dejiyey ergelinta doorashooyinka maxaa la yidhahdaa doorashooyinka dadban habraacaas uu ku shaqaynaa laakiin hadda ma kuu muuqataa in maaragtay habraaca maxaa la yidhahdaa la adeeci doono ma kuu muuqataa markii aad aragtid guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo campaign uu samaynayo qof maaragtay family ay yihiin kow campaign hadduu marba campaign uu samaynayo maxaa ka filaysaa hadda cadaalad ma ka filinaysid maxaa la yidhahdaa dhaqankaas wuxuu kasoo horjeedaa habraacyadii iyo qorshihii loo dejiyey doorashooyinka inay ku shaqeeyaan labo waxaa intaas ku dheer dadka ay u samaynayaan maxaa la yidhahdaa campaignka u samaynayaan waaba dad maaragtay aan ka dhalanin beelaha maxaa la yidhahdaa kuraasta haysto oo raba maaragtay in lala tartansiiyo ama kursi loogu qaado beel kale oo ah beel ku haysato kursiga sifo oo sharciga ku haysato marka meesha maxaa kaaga cad cadaalad dara kaaga cad xataa maaragtay qof oo mas-uul laga dhigay oo haddana aan kala aqoonin yacni maxaa la yidhahdaa keeni kara in maaragtay shaqadaada aad maaragtay shaqada lagaa eriyo ama shaqada aad maaragtay iska lumisid maxaa aan kala fahansanin ooba maaragtay si oo gambasho aan lahayn inta baraha bulshada maaragtay hadallo oo ku saabsan yacni taageero iyo kambaynnimo meesha la soo istaagay oo gambasho aan lahayn hadda anaka waa soo koobiyeyni sawirna ka soo qaadnay ma fahantay haddee rabaan ha tirtiraan laakiin maxaa la yidhahdaa wixii waa haynaa caddaynteeda waa haynaa wax maaragtay anaka hadda noo caddaynna maaragtay dadka maku eedeynayno laakiin wixii caddayn oo la haayo waa soo bandhigeen ma fahantay guddigan ma aha guddi oo rabo inuu ku shaqeeyo habraaci loo dejiyey doorashooyinka waa guddi rabo inuu ka shaqeeyo inuu maaragtay musuqmaasuqo doorashooyinka sababta oo meesha loogu soo riixinay taas waaye xataa ma umalaynayo aqoon iyo karti ku filan oo doorashada ay ku hagaan inay maaragtay ay leeyihiin wanaagsantahay suldaan waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo suldaano waxaa fariinna loo soo diray isbuuc markaan barnaamij adeeg kaa qaadnay oo waraysi kaa qaadnay nala soo weydiiyey dadka ay rabay inay ogaadaan waxay yidhaahdeen fanaankeena weynaa baasharax abwaankiina maalin uu hadlayay ama war shir jiraayid ay qabanayeen ayuu wuxuu ka dhawaajiyey in haddii kursigooda ama barnaamijkooda khaaska ahaa haddii faraha lagala bixi waaye inay dagaalami doonaan oo dagaal u cilaamiyey waxay yidhaahdeen marka suldaanka miyaysan ku qurux badnay in su-aashaas la weydiiyo suldaano fanaanka maadaama uu nabaddoona u yahay ama nabadda ka shaqayn jira maxaa kalifi maanta inuu abwaankeena uu dagaal iclaamiyo dagaalka uu sheegayna ma wuxuu ula jeedaa inuu gacan kula tago ama qori qaato maxaaba hadafkiisa uu leeyahay marka suldaan maadaama adiga aad isku beel tihiin maxaad ka dhihi lahayd barnaamijkaasi بارك الله فيك برضه سؤال waxaan ka dhihi lahay arinta farka baxay taagantahay dhowr jeer oo beesha qalmashuwa ee hadleen odayaashood waxay tilmaameen haddii wax dhibaato meesha ka yimaado anaga mas'uulka manihi waxa mas'uulka ka ah dadka ka shaqeynayo inay abuuraan colaad beelaha banaadirga dhexdood runna waa arintaas maxaa la yiraahaa qofka hadda asoon ku tala jirin inuu maaragtay dagaal oo gacan ka hadal ah inuu qaado asoon ku tala jirin ayaa laakiin waxa dhici kartaa in maaragtay si
lama filaan ay maaragtay wax faraha uga baxan ay waxa uu halaaban waxaan u sabab caro maaragtay u sabab dadka in maaragtay laga cariisiyo oo maaragtay dhaxdood maxaa la yiraahdaa laga abuuro maxaa la yiraahdaa colaad laga abuuro oo maaragtay qof oo u jeedo oo aan rabin maaragtay in la bahdilo oo haddana maaragtay loo socdo in la bahdilo maanta hadda diilado beesha qalmashuwe kursiyiin beel oo idinkoo kaleenta camal maaragtay kursiga idinka qaadatay maxaa la yiraahdaa waa iska celin weyseen diilado sidee ay dareemayaan waxay dareemayaan maaragtay in la bahdilay dareemayaan waxay dareemayaan in la ihaanaystay dareemayaan waxay dareemayaan maaragtay in oo maaragtay dad wax iska celin karin inay yihiin dadaan macno lahayn inay yihiin dadaan dad haysanin dadaan dhig lahayn inay yihiin ay dareemayaan ma dhici kartaa maaragtay ma dhici karto in maaragtay colaad ay meesha ay ka dhalato oo markaas tartiib colaadaas ay xoogaysato hadhowdii marka waxyaala aan loogu talagelin aan la filayn inay meesha ay kasoo baxaan oo xataa ay sii gudubto maaragtay gacan ka hadal ay sii gudubto marka taas awgeed waxa ay ku socdaan beelaha qaarkiis oo maaragtay warbaahinta ay la soo istaagayeen maxaa baraha bulshada ay la soo istaagayeen waa gambasho la'aan inay ka shaqaynayaan colaad beelaha dhexdood marka taas oo aan maaragtay laga waantoobin maxaa la yiraahdaa dhegahaaga waxaa daalinayo maxaa la yiraahdaa hadallo kulkul oo noocaas oo kale hadalada sheegayso kale oo maaragtay aad ka maqasheen maxaa la yiraahdaa oda dhaqanka baashar xad ka maqasheen hadallo kulkul noocaas oo kaleete aadhigii inuu ku dhacayo ma fahanteen marka runna waaye dadka ka shaqaynayo colaada beelaha banaadirka dhexdood ayaka la rabaa maaragtay inay arrintaas inay xakameeyaan inay arrintaas xantaan la rabaa haddii laakiin wax maaragtay hadda aniga waxaan aaminsanahay doorashooyinkan xataa kursi ma heli doonaan saan aaminsanahay walaa kursi ma heli doonaan walaa maaragtay meel u dhow xataa ma soo gaari doonaan yacni waxaa ula jeedaa xataa ma soo gaari doonaan in loo diiwaangeliyo maxaa la yidhahdaa xildhibaannimo murashaxnimo loo diiwaangeliyo ma soo gaari doonaan maaragtay ilaa heer in erga laga qabto xataa ma soo gaari doonaan aniga kaasaan aaminsanahay sultaan gabagabadii aan marayna waqtiga noogu yar maxaa maaragtay kalifaayo maaragtay inay ay isku daaliyaan ayna ka shaqeeyaan wax hadhoodii natiijiisa ay kasal gaari doonaan intaasaan dhihi lahay maasantahay sultaane gabagabadii aan ku sii siqaynaa waxaan rabaa laba su'aalood keliya inaan kusoo koobo su-aasha ugu dambe aan rabaa koowaad aan ku weydiiyo waxay tahay hadda waxaan u qeylinaa kuraasaa loo qeylinoyaa oo qof kasta wuxuu leeyahay kurasiga taadi ka sheekaysanaynin kursiga laga qaatay ama hubkaas anaga iskala hubka anaga iskala qof kastana wuxuu wax ku naqdaa aahaartiisa ama dhaqankiisa ayuu wax ku naqdaa maxaa loo heli waaye qof ilaalisa dhaqankii banaadirigan ku ahayn ama wax naga dhigay qof ilaalisa maxaa loo heli waaye tusaale waxaan kaaga soo qaadanaa hadda masaajidkii jaamaca ugu dambeeyey aahaartii ugu dambeysay taalay suxuuntii oo zamaanka ahaan jira intaasoo kun sano oo meesha ku dheganaayeen ayaa laga fujiyey cid ka soo hadashay ma lahan memberkii meesha la jibay cid ka soo hadashay ma lahan kursina waa loo qeylinoyaa maxaa keenay marka damiir daradaas oona haysato oo kuraasta keliya ugu mashquulsannahay maxaa loo heli waaye cid ka qeylisa horta baaraka allahu fiik sida horta anigaan aaminsanahay majaal kasto daday leeyihiin siyaasadda majaalkiisa daday leeyihiin markii la dhaho diinta ama cilmiga diinta majaalkiisa daday leeyihiin maxaa la dhahaa dhaqanka majaalkiisa daday leeyihiin wax walba majaalaa jiro marka aniga waxaan eedaas aan ujeedinaa dadka taariikhda qoro ama taariikhda ka hadlo oo taariikhda yaqaano oo haddana wax maaragtay dhaqdhaqaaq ama maaragtay dadaal aan meesha aan soo yani aan haynin waa jira in buwaag la qoray dadkii qoray qaarkiisa allah u naxariisto waa dhinteen dadka qaarkiisna weli waa nool yihiin qaarkiis waxay ku dhahayaan maaragtay aniga taariikhyahanaan ahay ma fahantay laakiin runta fiican waxay nagu maaweelinayaan sheekooyin oo relevant aan ahayn sheekooyin aan waaqic aan ahayn nagu maaweelinayaan kuwaasaana maaragtay
كمسؤول أو آموسن أو مارتي أرماس أن مارتي كجابي إن مارتي حق الأسارة مجال كاس قف أن كوفي عنين كهذا الكيس مجالي كرو آثار تاس مدفاعي كرو قف أن أقونين تاريخ ريس أن سفي عنه أقونين مدفاعي كرو مركا ما دام إجران ضدك مارتي مجال كاس يعني كوفي عن إجران إن مارتي وركود لمغلو أي حدلان أو مارتي ضدكينا أي بران سي مارتي قفك نوعا وكالنتي لوغو أرتيق لها دي أنا بران سي قفك نوعا وكال لو هرتقو تاريخ ذا مارتي هو أن وحبنا أن كأقونين إن النتوسان مارتي نفانسيان مركز قصب واي وعد أركيسا ضد بدن أو أرتاس صبحي إني دفاعا لكن أيضا وحا إسكاله ضدك تاريخ ذي خان أو قراياش تاريخ ذي خان أو مارتي مسكحة كهايو ضدك ده تاريخ ذا مارتي أنا عن كهالي كرا ده هايو أو واحد دور أو مارتي أمد ذلك أن كجي سنين أو أريتا لكن نقوم ويلنا مارتي وحياله أو مارتي ترمينولوجيا على هاتوا يعني ترمينولوجي كانوا حالا وذا كاسو وحس إنه نقوم ويلي ما حقائق ذا جرتوا واقعة إن مارتي لقعد لها دي لأن لتابوا يسوما dadka kaleente siyaasiyiinta culimada maxaa yiraahdaa oo dhaqanka oo kaleente dadkaasiiti amaarta kicin lahaa dadkaasna maxaa yiraahdaa runtii hadda wax door maaragtay oo ay arimaas ay ka geysteen ma jirto eeda ay ka iskale gabagabadii suldaan ayaa tahay nabadoon aad tahay haddii maanta lagaa codsado baaq u soo jeedi dadkaaga ama baaq soo jeedi dulno maxaad halkan baaq ugu soo jeedi lahayd ummadaada Soomaaliyeed khaasatan beelaha banaadiriga والله أرتا بلا بنادريجا أي كديبا سكولاتان داد ماركتي حضارة آديات ماركتي وفوق تحواي داد كاس أهل القرى وأهل القرى فهمتي داد ويلي جود نظام إيكالا دمبين كوهسنولا اسمام الكوهسنولا تاريخ ذا بنادر أديب أقولها بتت مجرتو ما حسوسكري ما ماركتي شيء كري إن لا صور مري مرحلة أو كسبسن إن اسمه الوجر يعني مر أو ماركتي أريد أن سيف عن أقول فكري بخلال سنة مركي دي بلوغ لابتو أما كمنان سنة لما كون سنة أسكده دار مركي قبلته كبعدي بنادر ما كدعين ما ملان ما كدعين إلا ماركتي سكاشي كودي كبعدي حقيقة جرتوا ساجيش كودي كبعدي أيا وحاتمت اسمه الآن أنت كوريسي حتى مركي استعمارك جوجي حتى مارك استعمارك كور وليجيس بنادر وحكي جرتي نظام اسمه الأكجري كلا دمبينك أكجرتي يعني حير لوجو شقين جري ومارتي وحول بلوجها جاي فهمتي وحي كدوناين دتك صوت أهل القرى حاليا waxay ka duwanayeen dadka ahli baadiyaha dadka maarta nidaamkii kala dambeynta aan lahayn waxa waa dadka ahli baadiyaha laakiin dadka reer magaalka markasto nidaam oo ay ka hagay ay lahaayeen banaadirigana kamid ah marka quraanka xataa waa tilmaama markii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu rabo inuu ummad maartay nabi uu soo diro nabigaas wuxuu ku soo dhaxsaari jiray dadka oo reer magaalku soo dhex jaari jiray reer reer baadiyaha ma la soo dhex saari jiray quraanka xataa waa tilmaama wama arsalna min qablika illa rijalan nuuha ilayhim min ahli alqura fahanti marka saas ilaahay subhanahu wa ta'ala u sharfay marka xadaarada qof kasta muxuu hadda ishu uu fiirnaa uu eega banaadir oo qof kasta uu dhaha banaadir ana iska leh waa meeshii maarta xadaarada laga soo gaaray nidaam kasta oo soo maray Soomaaliyana waxa xarun u haajirtay meesha dadka reer banaadiriga ee degiina xarun ah jirtay talyaaniga xarun ka dhigtay maxaa la yiraahdaa nidaamyaashii hore ka horiya xarun ka dhigtay markii haddana maartay dawladda oo maartay madax banaan loo sameeyay oo maartay oo xor ah loo sameeyay waxay xarun ka dhigtay banaadir ee xarun ka dhigtay marka dadkaas maxaa waajib ku ah dadkaas waxa waajib ku ah in maartay ayka ay xadaaradooda inay sabaabiin oo xadaaradooda ay shaqeyso marka maxaa la yiraahdaa waxaan dhihi lahay reer banaadir dad xadaarad weyn leh aatihiin oo xadaarad fog leh aatihiin waa in maartay wax walba wanaag
oo maaragtay weligiina aad lahaan jirteen in maaragtay aad ku dheganaatiin oo aydan idinka fakanin wax xunna aan la idin keenin laakiin idinka aad noqotiin dadka maaragtay waxa xun markii loo keeno iska celin karo markii wax gudbinayna waxa uu wanaagsan oo ayka laga soo raaday gudbin karo insha Allah taasaa maaragtay talayga جزاك الله خير سلطان كاسي وحا سلطان عبد الكريم سلطان خليف دورو وقد تلفونك نقول لها قد اسمك ارق نقول هدلاي وجو دلك يوكي جزاك الله خير سلطان هذا وما سنتهي وقتها نوgu yira mooyane سلطان wax badan ayaa ka buuxo insha Allah ta'ala waxa rajeynaa ummadeena marbaqisina u soo qaadano aan ugu faa'iideyno inta aan barnaamijkan ku soo gabagabeynayna oo walaalkiina maxamed xaaji amiin kala soo hadlaya dalka Netherland magaalada Nijmegen oo idin leh maalinta idin qurux badnaado habeenka idin wacnaado salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh سلطان adiguna aad u mahadsantahay walaalkayga